Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan meel kasta aad joogtaan. Insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa siyaabaha loo koriyo ugxanta dumarka ama waxyaabaha ka caawin kara gabadhu markaasi in ugxanteeda ay noqoto mid tayaysan oo markaasi tayo leh. Mawduucan waxaa soo codsaday asxaab kamid ah asxaabta markaasi nagu xiran. Insha Allah marka hore waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo awlaadu waa nimco Ilaahay bixiyo oo Ilaahay qofku doonayo awlaad siiya, qofku doonana ma siiyo. qofku doono gabdhi wiilba isugu daraa, qofku doono wiilal kaliya siiyaa, qofku doono markaasi gabdho kaliya ayuu siiyaa sida markaasi ku xusan aayad kamid ah aayadaha Quraanka. insha Allah maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno ugxanta waxyaabaha markaasi ka caawin kara in ugxanta ay noqoto mid markaasi tayaysan oo tayadeedu markaasi sareyso oo una diyaarsan inay markaasi wax weeye uur qaadista ama inay markaasi ilmuhu ay ku beermaan. insha Allah mawduucan waxaan filayaa inay ka faa'iideysan doonaan gabdho badan oo markaasi raadinaya uur ama sidii uur ku qaadi lahaayeen ama uur qaadistiiba ay markaasi ku adkaatay. uur qaadistu ama ugxantu inay markaasi noqoto mid aan tayaysnayn oo daciif ah, inay noqoto ugxanta waxyaabo badan baa keeni kara. hadday noqon lahayd infection markaasi jira ama hadday noqon lahayd xaalado kale oo caafimaadba. marka insha Allah gabdhaha uur qaadista raadinaya uur qaadistuna ay ku adkaatay iyadoo ay markaasi jiraan waxyaabo badan oo keeni kara in gabadhu ay markaasi uur qaadistu ku adkaato amaba hataa si kale u dhahno in gabadha ugxanteeda ay noqoto mid aan tayaysnayn oo daciif ah. waxaa keeni kara markaasi cilado badan baa markaasi keeni kara dhan caafimaad iyo dhan kaleba. insha Allah maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago qaab kamid ah ama wax kamid ah waxyaabaha markaasi laisku raacay oo dad badan ay tijaabiyeen waxna isaga garteen dumar badan markaasi ay uur ku heleen ama uur qaadistii ay wax weeye u fududaatay ugxantooda inay noqotay markaasi mid tayaysan wax weeye markaasi soo kobocday. qaabkan insha Allah aan sheegi doono waan filayaa in markaasi gabar walba markaasi uur raadinaysa inay isku daydo. marka koowaad waxaa markaas soo qaadanaysaa 3 shay. saddexdaas shay waa 3 shay oo markaasi guri walba ama xaafad walba markaasi laga heli karo oo gabar walba markaasi u fudud inay markaasi hesho. marka koowaad waxaad soo qaadanaysaa qaado malab ah. malabkana waa inuu noqdaa malabka organiga ah oo saafiga ah inuu noqdaa weeye, ma aha malab kasta inaad isticmaashid, kaliya kan organiga ee saafiga ah waa marka koowaad. marka labaad inaad markaasi aad soo qaadatid waxa loo yaqaano qorfaha inaad soo qaadatid, gaar ahaan qorfaha shiidan inaad soo qaadatid ee markaasi budada ah. 3 markaasi inaad soo qaadatid xabad sawdo, gaar ahaan xabad sawdada saliida leh inaad soo qaadatid, iyo bahasha markaasi waxa lagu dhibciyo oo markaas sida goojada furkeeda oo kale ku jira camal oo kale. markaas waxaad sameynaysaa 3daas shay markaas soo qaadatid 3dii shay baa isku daraysaa qaado malab ah oo malabka organiga ah iyo qaado markaasi qorfihii shiidnaa ah. qorfahana waa qorfaha caadiga ah shaaha lagu darsado oo shiidan. qaado malab ah oo malabka organiga ah iyo qaado waxaa isku daraysaa qorfaha shiidan ah. kadib waxaad ku daraysaa 10 dhibcood oo markaasi saliida xabad sawdada oo originalka ah. dhibcahana markaas waxaad isticmaalaysaa bahasha yarta loo yaqaano drobiska oo sida waxay u eg tahay oo kale goojooyinka indhaha bahalaha lagu soo daro kale dhibcaha lagu soo qaado kale bay u eg tahay. meel kasta laga helaa hadaa markaas raadsid waad soo helaysaa supermarketyada iyo meel kasta markaasi alaabaha lagu gado waad ka soo heli kartaa. kadib marka inta isku jartid waad isku walaaqaysaa. markaad isku walaaqdina waad isticmaalaysaa. haddii markaasi aad tahay gabar markaasi uurka raadinaysa adigoo markaasi isticmaalaya waxyaabahaagii kale oo tusaalahaan oo kale haddii daawooyin ku socdaan oo kale daawooyin badan baa jira. insha Allah mar baan kasoo hadli doonaa daawooyinkaas waxay ka caawinayaan inaad uur qaadid oo gabdhaha uurka raadinaya bay ka caawiyaan in ugxantii ay waxa way soo tayayso oo ugxantii aad daciif ahayd markaasi waxa way daciifnimadii ka saarto
ugxantiina ka dhigto mid nafaqaysan oo soo kubxayso soona badanaysa. Marka adoo waxyaabaha kala isticmaalaya ayaa alaabtan gooni u isticmaalaysa oo iyadana si gaar ah baad u isticmaalaysaa. insha Allah mawduucaas ku saabsan daawooyinka markaasi ka caawin kara xagga uur qaadistana mar baan kasoo hadli doonaa si gooniya. aynu usoo noqono marka insha Allah saddexdan shay aan soo xusnay oo ah malabka saafiga ah iyo qorfaha shiidan iyo xabad sawdada saliida ah inaad isku dartid oo markaasi aad isticmaashid. alaabtan laisku dardaray kaliya ma ka caawinayaan in waxa weeye urka xagga uur qaadista amase ugxanta tayeenta ugxanta oo kaliya. sidoo kale alaabtan waxaa ka faa'iideysan kara gabdhaha markaasi caadada markaasi waxa weeye khalkhal kaga jiro ama ay ka wareersan tahay oo kale ama caadada markaasi ku xanuunsadana way caawisaa oo inay isticmaalaan. oo haddii markaas tusaale ahaan oo kale ay markaasi caadadii ay ka wareersan tahay oo kale oo bil walba waqti aysan filin u timaado waqtiyadii ay ku ogeed maahan waqtiyo kale markaasi kasoo hormarto waqtigeedii iyadana way adeegsan karaan oo caadada ayay markaasi ku saxaysaa oo waqti saxan ayay markaa waan filayaa inaad ka faa'iidi doontaan. alaabtan haddaad si joogto ah u wadid in muddo ah waan filayaa markaasi insha Allah in natiijo fiican aad ka heli doontid aadna kuna farxi doontid hadduu ilaahay yiraahdo sida dad badan oo soo tijaabiyey ay markaasi nala soo wadaageen. insha Allah mawduuc maanta intaas oo kaygyahay haddii aad horey noola joogtay laagtaa naga ilaawin waa noo dhiirigelin. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir si aad markaasi uga faa'iidaystid muuqaalada caafimaadka ee markaasi ayna soo gudbino.